magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayay dhismaha madasha xisbiyada qaran oo ay ku buuhoobeen ilaa 6 xisbi siyaasadeed oo hormuud ay ka yihiin axsaabta ay hogaamiyaan madaxweynayaashii hore ee talada dalkan ku kala dambeeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. madasha ay ka dhaceysay munaasabadda waxaa gubjoog ka ahaa marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweynihii hore ee dalkan Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabadda ayaa dhaliilay hanaanka dowladda Soomaaliya ay ku wajahayso siyaasadda amniga iyo doorashada dalka oo uu sheegay in ilaa ay hadda aysan kala cadeen, taas uu ku dhaliilay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in wax qorshe aysan ka lahayn. أما الله بشير كرده أما كرده وحوي هالشيء جواه بلده أنا بوجود الثاني جينا تفوت عليه بوجود أنا بوجود جينا بوجود أيوة بوجود وحنا بوجود أما طلع عبرون هذا ومحكم كتعادل هذا يلا توجي دورش على قضية doorashada iyo hay'adaha dastuuriga waqtigooda la kordhina inaan joogo jeclaaya in odaga gardaaran la yiri inaan joogo jeclaaya magaca dowladda laga yiri maalina idara si qaabada muddo haddii processku uu bilaabo annaga intaan maxaan dacwaan ugu eedeeyaa dhowr bilood ma qorsado أنا وقت لو كان في كل واحد تذكر إلى براسك دراما براسك دراما إلى براسك جدا أقطاب الصلاة مش صلاة أقطاب الصلاة مش صلاة أقطاب الدراما جدي أقطابنا كذا بس كذا الدراما جدي أقطابنا هو كلام سهل ذيك الدراما اللي جرني نشر الدراما اللي جرني ضد الدراما اللي جرني كنا كرسينا ما عندي متعلم واحد كستا وأنا نقول وأنا نشوفني أنا كرسي وأرشك لي سنت كلامه بس سجون كلش أنا لاسي أنا كبشر هني كولا بالعشرة تجيبني dhanka kale waxaa isna khudbad ka jeediyay madasha Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee madasha xisbiyada qaran oo maanta magaalada Muqdisho ku shaaciyay inay dhisteen madal ay ku mideysan yihiin. waxa uuna ka hadlay xaaladda dalka uu marayo isagoona dhaliilay diiwaangelin uu sheegay in ciidamada niisa loogu sameynayo gudaha magaalada Muqdisho isagoona tibaaxay in shaki weyn ay isaga ku beertay. Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu soo hadal qaaday qaladaadka ilaa ay hadda dowladda ka dhacay muddada xilka talada dalka ay hayaan. waxa ugu dambeeyay waxay ahayd waxa ka dhacay buula caawo waxa ugu dambeeyay waxay ahayd waxa ka dhacay Garowe waxa ugu dambeeyay waxay ahayd waxa ka dhacay Kismaayo waxa ugu dambeeyay waxay ahaayeen Galmudug xagee loo socdaa xagee loo wadinaya oo sheegaan in ogaan أنا أقول لك أن هذا العام سكرنا جت كان قطع هؤلاء الكل جزء لكن أكثر من إنسان على صوت سوابته أكثر من إنسان على صوت وعلى صوت حوالي تبدأ قرانية نيجي شر ولا نقول وقت ما توقع أن يسميه أن أكثر خطوة توقع ذلك المشي waxay u bisayeen dawladnimo madaxweyne aniga saaxiibka ayaa tahay waana ku ixtiraama dariiq waa ka leex walaalka waxaa ugu fiican midka runta kuu sheega aniga lama rabo dhaqaalama rabo wax laygu galaa ma jira waxaan ka raba shaqayga soo laada ku lagaayni karaa intaas ma lagaayni karaa intaas.
soddonkii bishii Oktoobar ee tagtay 2019 ayaa madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa magaalada Muqdisho xisbiyada lixda xisbi ay ugu doorteen inuu noqdo gudoomiyaha ku-meel gaarka ah xisbiyada qaran. Yuusuf Maxamed Axmed, Galmudug TV, Muqdisho.